magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo xiriir ganacsi la lahayd magaalooyinka Boosaaso, Garowe, Gaalkacyo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolada Waqooyi ayaa waxa saameyn ku yeeshay amarkii ka soo baxay maamulka Puntland ee lagu mamnuucay gaadiidka ka yimaada koonfurta Soomaaliya waxaana xilligan hoos u dhac ku yimiday dalagyada ka soo go'a beeraha gobolka Hiiraan oo intooda badan loo dhoofin jiray deegaanada Puntland. حق خضارة حقيقة مركان كذا واتوي بقولتمد أول خضارة مركان كسنة وحق السوق عن ماذا راح بدن معنا نقمة داعي جرين برسوا عيمدي كايتان فربضن هي قسارة بدن وخضارتي كلهم كلهم خبأ وكنتمد حق تبدع وكذا حرن عود هذا مركان عن شيء أنا مركان بس كإسلام كذا كشجاع كبر كذي خلق الله سبحانه إن بس كإسلام كقدرية وضع غفران سيسلان وناقة وإسلام وناقة وغفران قادريني كروني كيلو على جوج ستات كمطو على قلا أفركم يعني قرقري أفركم قرننا بصل وحي دم بدوك مروي marka maxaa soo وحي صاد وحي دم قار كلها كان وحي دم بدوك مروي wax la galaan malaha waa dhulkay taala saara weyna ku dhaxdiyaa marka maxaa sababa waa la abuuray wixii dhamaay marna wada keenay dabahi waa wada dinti waa naga xireeyay marka sababta taas keentay waxaan hayno amal ma wallahi aad u dhaqaaqay ay ka kooban tahay yaayo baradho basal yaayay bocor intaas shay ka kooban ay maha qudaarta waxa la kala yaayada qorqoreeyay afka la garaa asashay baradho waa tan iyo afar basasha waa iyadana waa tan أنا وعن هاي نندر ولا كم درولين قبل كهيران جوكتا وكشغية وذا قال هيران سكحي أنتي رنتي قدرت هذا يعني قابك أي وشغي سوق وقاب وناكسن دي بدأ هذا كيرين وعا كم ذا maadaama ma taqaana qudaartu ay ilaa meelo badan tegi jirtay hadda waa soo gaagaabatay waa meelo gaaban sida Gaalkacyo iyo Madhaaf gaadiidkii waaweyn hadda qudaartu ku jiray ma jiro dhaynayaasha iyo waaradada iyo waxa qaada Gaalkacyana waa tagaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo halbowlow waa dhaqdhaqaaqa ganacsiga koonfurta iyo waqooyiga dalka ayaa tan iyo markii maamulka Puntland uu mamnuucay gaadiidka ka yimaada koonfurta Soomaaliya waxa uu xakad ku yimiday gaadiidka xamuulka qaada ee u kala safro gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalka. Maxamed Cabdi Sanay, telefishinka caalamiga ee Bulsho, Beledweyne.